sida ay daabacday hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha warbixin ay ku sheegtay inay Soomaaliya markani ay dhaxay haabayso heerkii ugu xumaa ee xorriyatul qowl la'aan. Warbixintan oo ay hay-adda ugu magac bixisay musuqmaasuqa dilalka faafreebida oo hareeyay xorriyadda saxaafadda Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadashay sida baahsan ee loo beegsanayo wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. Cabdullaahi Cismaan Soomaali oo kamid ah baarayaasha sare ee ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay heerka ay haatan ay marayso saxaafadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ay jirto cabsi iyo qalqalgelin amni oo lagu sameeyay wariyaal dhowr ah kuwa oo tusaalooyin u soo qaatay wariyaal dalka isaga huleelay kadib markii qalqalgelin amni iyo cagajuglayn joogto ah ay kala kulmeen qaar kamid ah saraakiisha laamaha ammaanka. cadaymaha aan hayno maalan wariyaasha ayaga qaraabadoodii iyo agaasimayaashii ama tafatirayaashii idaacadihii ay ka shaqayn jireen ayaan la hadalnay oo noo xaqiijiyay dhimashadooda. waxaanu aragnay xukumo ka soo baxay maxkamadda maalan hal ka mid ah wariyaashii la dilay waxaa dilay sarkaal ka tirsan booliska. maxkamad baa la saaray 5 sano xabsi ah lagu xukumay iyo in 100 haladoo maaragtay maga uu bixiyo cadaalad uu ka fakaday. waxaan ognahay haatan inuu ku sugan yahay galmudug. tacadiyada kale ee maaragtay wariyaasha loo geeyay sida xariga jirdilka ayagii baan wareysanay. mararka qaar waxaan daawanay fiidiyoyaal tusaayo in saraakiil dowladda ka tirsan ay garaacayaan ama feerayaan wariyaal. maalan wariyaha la yiraahdo Cali Aadan Muumin oo kamid ah wariyaasha dhibaatada weyn ay soo gaartay waxaa jirtay in la jirdilay in mar la xiray xabsi sharci darro lagu xiray maxkamaddu ay sii deysay accountigiisa Facebook la xiray hay'adda nabadsuugida ay soo wacday oo la dhibay oo loo cagajugleeyay kadibna wadanka uu ka carray. Cabdullaahi Cismaan Soomaali ayaa sidoo kale waxa uu cadeeyay in baaritaano dheeri ah oo ay sameeyeen hay'ad ahaan ay ogaadeen in wariyaasha qaar ee ka howlgala iyo agaasimayaasha tafatirayaasha warbaahinada qaar ee ku yaala gudaha Soomaaliya ay lacag laaluusha ay ka qaataan qaar kamid ah saraakiisha xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu sidoo kale warbixintan uu ku sheegay sababta ku soo beegaysa in xilligan ay warbixintan ay soo saaraan hay-adda Amnesty International midda ku saabsan laaluushka oo aad muhiimka u ah sida sheegtay. waxaanu la hadalnay saraakiil ka tirsan dawladda oo og in saraakiil ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha ay muddada ayada ah oo aan sheegnay ay idaacadaha milkiilayaasha iyo agaasimayaasha idaacadaha qaarkood iyo warbaahinta qaarkood ay lacag siin jireen. waxaanu la hadalnay maalan agaasime lacag ka qaadan jiray saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha oo noo sheegay in uu kula kulmi jiray hotel oo lacagta cash loo siin jiray markii uu weydiiyo lacagta in bangi ugu soo shubaan ay dhihi jireen maya may rabaan in cadayn maaragtay la helo inay lacagta bixin jireen. waxaa kaloo la hadalnay wariyaal noo sheegay in idaacadaha ayaga oo noola sheegay inay lacagta qaadanayeen milkiilayaashoodii iyo agaasimayaashooda ay u sheegeen in si cad dowladda ay lacag uga qaataan oo dowladda qandaraas kula jiraan oo aan loo ogolayn in ay soo tabiyaan waxyaabo dowladda dhaliil ku ah. waa macquul in qofka dambi uu sameyn jiray in uu nala wadaago laakiin waa cadaymaha cadcad aan hayno in dowladdu ay lacagta ayada bixin jirtay. xafiiska madaxweynaha waan la xiriirnay wasiirka amniga, waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta, waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee Puntland. intaba waan la xiriirnay. xafiiska madaxweynaha waxay noo sheegeen in aynan bixin jirin wax laaluush ah. waxay kaloo noo sheegeen in eedahan u soo joodinay aynan lug ku lahayn oo ayna samaynin. laakiin jawaabihii ay noo soo direen mayna soo raacinin macluumaad dheeraad ah oo warkanagii aan ku beenin karno noomayso sheegin. warbixintanada waxay ugu soo hagaagtay xilligan laba sabab. sababta koobaad waxaa weeyaan sanada guurida saddexaad ee madaxweyne Farmaajo lagu jira haatan. marka waxaan qiimeyn ku sameynaynay 3 sano ee madaxweynaha uu madaxweynaha ahaa qaabkii ay xaaladdu ahayd. midda labaad waa sidaa sheegtay oo xilliga doorashada soo dhow dowladana talaabooyinkan adag ee aan u aragnay in ay xorriyatul qowlka ku xadidayso waxaan walwal ka qabnay in ay ka sii darto oo sanadka soo socda oo doorashada ay sii caburiso xorriyatul qowlka iyo xorriyadda saxaafadda. waana sababta aan u rabno in dowladda iyo madaxweyne Farmaajo dhammaan ay u ogaadaan in xilliga siyaasadda ay socotay iyo doorashooyinka dadka shacabka ee Soomaaliyeed loo ogolaado inay helaan fursad
ay ku dhageystaan oo ay ku helaan macluumaad ku filan oo ku saabsan doodaha siyaasadda madaxda tartamayso dhammaantood ra'yigooda ay ku haystaan oo dadka qaarna aan la caburinin. hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa inta badan waxa ay muddo dhowr jeer oo hore ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay in ay cunaqabatayn iyo cagajuglayn ay ku hayso saxafiyiinta ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. gabagabada warbixinta ayaa waxa lagu sheegay waxa aan rumaysanahay tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bishii labaad ee sanadkii 2017 in saxaafadda Soomaaliya ay la kulmaysay heerarka kala duwan ee xorriyatul qowlka. warbixintan ayaa sidoo kale waxa lagu xusay in maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay si isku mid ah ay cunaqabatayn u saareen saxafiyiinta iyagoo joojiyay xor u hadalka. gabagabada warbixintan ayaana waxa ay ku sheegtay hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda in ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda ay u jeedinayso eedayn ah in ay meel uga dhaceen sharciga xorriyatul qowlka.